fashil iyo lama filaan ayaa laga soo tabinayaa koonfur galbeed. Warar cusub ayaa ka soo cusboonaaday Beedhabo. Halkaasi ay kulan ku lahaayeen xildhibaanada cusub ee dhawaan ku soo baxay doorashadii ay madaxtooyadu ka qabatay koonfur galbeed. Saaka waxaa kulan isugu yimid xildhibaanada oo ay ahayd inay gudagalaan nidaamka doorashada. Sidii la sii ogaana, waxay ahayd in kulanka uu shurgidoomiyo xildhibaanka ugu da'da weyn, kaas oo la ogaa inuu ka socdo xisbiga NBU ee Shariif Xasan Sheekh Aadan. hase ahaatee waxaa mar qura dhacay waxaan la filanaynin. waxaa soo baxay shakhsi kale oo ay dawladdu sii diyaarisay, kaasi oo ka tirsanaa xisbiga JSB. baasaboorka loo bedelay. sababta loo bedelay ayaa ahayd in dawladdu ay maamusho habraaca samaynta doorashada, waxaana la soo jeediyey in doorashada maamulkaasi laga dhigo gacantaag. hase ahaatee waxaa loo codeeyey inay noqoto sideedii hore. waa maxay arrinta xiisaha leh? arrinta xiisaha leh ayaa ah in xildhibaanadii JSB oo aqlabiyadda ahaa ay wax ka badan kala bar ka hor yimaadeen qorshihii dawladda, kaasi oo ahaa in codeynta laga dhigo gacantaag. taa beddelkeedana waxa ay soo jeediyeen in qarsoodi laga dhigo. inkastoo aan la isku raacin, haddana meeshii waxaa ka bilowday buuq iyo muran, waxaana fashil ku soo dhammaaday kulankii. mar kale ayaa lagu ballamay in la isku soo laabto, waana xaalad aysan dawladda, JSB iyo murashaxoodaba aanay ku talagelin. wax kasta waxa ay noqdeen fashil iyo lama filaan.